السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرديال سودو هذا كسودو هذا بالي Institute of Language and Development Skills ما أنت عتب كانوا وحكي هلا يا رحمة the King's دوتا قبلي بقركا عشر كان وانت وحيدين صوت دياري ولكن مرنا معلن حسين بالي فضلا سبسكرايب صار لايك نده جنبلك نفرق صار مر والب وهش عشرة تياتكو حيس قليا مع السندين رحمة the King's daughter رحمة بقرك قبليسا. There was once a king maalmaha ka mid waxaa jiray boqor who had only one child kaasoo lahaa oo keli hal caruur adowta gabar called la dhaho Rehema. She was more beautiful aad bay ugu qurux badneed than all girls gabdhaha oo dhanba in the land oo dhulkaas joogay. She was so beautiful aad bay ugu qurux badneed taasoo her beauty quruxdeeda was known laga garan jiray even xitaa in the neighboring countries wadamada deriska ah. The king boqorka was always mar walba blessed wuu faraxsanaa whatever people told him wax walba dadka ay ku dhahaan how beautiful his daughter si walba ay gabadhiisa ugu qurux badan tahay. He knew wuxuu ogaaday very well si fiican wuxuu ogaaday taasoo Rehema's beauty Rehema quruxdeeda had come from her mother inay ka timid dhanka hooyadeeda. Although maadaama Rehema was very beautiful ay aad u quruxsaneed, she was disliked waxa aad u nacbeed by people dadka. She was proud aad ba islaweynaysneed. She was proud waa islaweyni. She was proud islaweyni ay qabtay and always mar walba said waxay dhihi jirtay taasoo the poor faqiirinta were not good enough inay aad ugu fiicneen for the king's daughter boqorka gabadhiisa. All her friends saaxiibadeeda oo dhanba there were children waxay ahaayeen caruurta of chiefs gadoomiyaasha and rich iyo taajiriinta. When goortii young men nimanka yaryar am dhalinyarada started visiting ay bilaabaan inay booqdaan ayada asking inay weydiistaan to marry her in ayada ay guursadaan. She refused way diidaa and would laugh wayna ku qosashaa at them ayaga. Her father aabaheeda became very worried aad buu u welwelay because sababta he knew wuxuu ogaaday taasoo one day hal maalin Rehema would leave him inay ka tagi doonto and go ayna aadi doonto and start ayna bilaawi doonto her family qoyskeeda. He longed for the day maalintii dhan wuxuu ku fikiri jiray when goortii he could see uu arki doono his grandchild cunuga awaba uu yahay. fadlan walaal casharkan hadduu ku xiiso geliyay subscribe saar like saar gabalatan furo sad mar walba u hesho anigan dhiirigelin inoo noqoto ma sanadeen.